السلام عليكم maanta waxaa idin wadaa qiso runtii every parent worst nightmare ah waalid kasta tan oo kale uu ka cabsadaa qisadan maanta idin wada waxay tahay wiilkaas arkaysaan waa wiil Mareykan oo cadaana gabadhana waa u jeedaa waa latino yani qof midab madow tima madowna leh wiilkan iyo gabadhan ilmihii ugu horeeyay labadoodaba waaye gabadhii markay dhashay cunugay dhashay wiilay dhashay marka wiilkii markay dhashay waxay tiri waan qabtay cunugii raasasa u qabtay waan dhunkaday si hooyo waa si fiican ilmihii u fiiriyay subax habeenkii waa la iga qaaday tiri subaxii waxa la ii keenay tiri wiilka yarka ah marka waxay tiri wiilkii aniga aan arkayay tiri waa nin wiil odagayga u eg oo fair skin leh oo ila ekaa cunugan markii la ii keenay waxa eriyay tiri maya cunugan cunugaygi ma aha naagta neeriskan ku dhahay tiri cunugan ilmahayga ma odagayga waxaan ku dhahay war hebelow ilmahan ilmihii aniga aan xalay arkay ma aha cunuga runta uu dhashay waa wiilkaas hadda fiiri waa iskuma eka xataa ilmaha hooyadii marka naagti neeriska dhan waxay dhaheen maya you are heavily medicated dawooyin badan aan ku siinay dadkii asxaabtay wacday waxay tiri ilaa 20 qof oo yimi mid baan u wacay war cunugan cunugeygii miyay kula yahay hooyadii shaki ayaa lagu soo tuuray iyo walwal maya tiri maya cunugaagii waaye darooga badana isticmaal lagu siiyay oo dawaa heavily medicated ahayd laakiin si dhan war waa ilmahaagii gurigii aan tagay tiri adiga horta diyaaraday raacday magaaladay ku dhashay magaalo kale aadeen Texas baan degnay tiri oo u guurnay oo xaggan aadnay wiilkayga Texas aan la aaday tiri maalin kasta naaska markaan siinaayo waxay tiri waxbaan dareemayaa ninkayga waxaan ku dhahay tiri hebelow ma wiilkaygii miyaa cunugan waa okay wiilkana de because ilmaha iyadu waa Mexicaanid gabadha waa Latino marka madowgan iyo kalarkan marka hooyadu u ekaan karaa laakiin gabadha cunugii dhanag yani hooyanimada miyaa ma aqaan 3 bilood markuu ilmaha jiray ayay xataa ninkeeda uma sheegin DNA ilmihii ka qaaday odayga xataa uma sheegin waxaa isriye triviyo ku dhihi naagta miyay waalatay يعني ha u sheegin walwal ha gelinin because I knew it waxba jirkeygi ba waxba diiday dhahday ilmaha yarka ah cunugii naaskan siinaya waxay tiri waa jeclaaday haddana waxba ilaa cunugaagi ma aha DNA markaan ka qaaday DNA waxay soo baxday tiri 0.999 yani cunugii ina shaqaba ku lahayn isla markii odagayga u sheegay lawyeran qabsanay waxay tiri isla next day waxa la dhahay cunugaagi maalinta isbitaalka ah ku dhashay ilmahan kala la dhashay ilmahan waa qalad waaye markiiba waxaan ku leeyahay ilmihii ay raadsadeen the next day cunugiya la yiri soo doonta diyaaraday raaceen ilmihii bay ma aragto soo qaateen marka labada ciyaal waa iskuma eka xataa wiilkan kalarkii aabihiisu qaatay marka imagine hadii ilmahaas ay gabadhaaneyti ay sidaas lagu deyn lahaa ilmo islaameed ay iska korsan lahayd